shilkan iskarogo oo ka dhacay wadada isku xidha jaamacadda Amuud iyo waliba magaalada Boorama ayaa ahaa mid ka dhacay dixda Qorgaab isla mar ahaantaasina waxa uu geystay dhaawacyo fudud iyo kuwa culus oo iskugu jira haween iyo raaga sagaalkan qof ee dhaawac ka soo gaaray shilka iskarogada ayaa waxay ka timiday deegaanka Amuud iyadoo sidee ciidda lagu dhisay guryaha isla mar ahaantaasina ay dhibaato badan ka soo gaadhay dadka sagaalka qof waxaanu maamulka isbitaalka Al-Hayaad Maxamed Xasan Dirir uu nooga waramaya dhaawacyadaasi iyo sida uu la tacaaleen marka ilaa imika afar qof baa la qalay oo qalliinkii loo dhameeyay qoladii ka soo baxay ootiga inta kalena maartay waa qalliin kale loo baahan yahay qaab ay x-ray la qaadaya kadib marka x-ray la qaadaya ma soo qaadaya qaabka uu dhacay shilkaasi ma la idin sheegay والله سيد ورقي سو غاري waxa la gaariga maartay saan u sheegay imika wuxuu ka soo socday dhinaca Amuud dhinaca magaalada uu socday Qorgaab intuu la gaaray yuu maartay break ka go'ay darawalka inuu wala mid wala kadib markaa darawalkii wuxuu ku soo dayay inuu maartay gaariga joojiyo oo dhinaca bidix uu weelay oo moos jireen bilo mustahab u qabtaan laakiin xoog bamala u socday uu dhaafay moos oo markaa uu dadka qalliinka lagu sameeyay meel hela ka qalay qalliinka waxa laga qalay maartay laabta qaar laga qalay qaar waxa laga qalay maartay mistigta koo culus oo la culus qaarna qalliinka yar weeyay sidoo kale dhaqaatiirta kala duwan ee ku sugan isbitaalka Al-Hayaad ayaa waxay nooga warbixin guud ahaanba sida uu la tacaaleen xaaladda dadka dhaawac ka soo gaaray shilka iskar sidoo kalena waxay sheegeen in qaar kamida dadka dhaawac soo gaaray qaliilo lagu sameeyay sidoo kalena dadkani dhaawacmay ka koobnaa ragga iyo dumarka ayaa waxa uu dhaawacyo fudfudud iyo kuwa culus ay ka soo gaareen shilkaasi dhacay halka mid kamida oo ku jiray waarka emergency-guna oo ahaa xaaladiisu mid lala tacaalayo isla mar ahaantaasina maamulka iyo waliba dhaqaatiirta kala duwan ay noo sheegeen inuu xanuunkiisaasi yahay mid sanbabada uu dhiig kaga furan yahay waa kuwa dhaqaatiirtu iyaguna arrimahaasi ka hadlaya marka isbitaalka ay shaqada ku jirnay maanta ayaan waxaan duty-ga qabto waxaan 12 soo gaaray ilaa 9 qof oo dhaawacyo kala duwan leh qaar ay aad u dhaawacan yihiin ay kamid yihiin kaanka yaala emergency-ga qaybta emergency-ga oo aad u dhaawacmay runtii ay dhibaato ka gaadhay xagga sanbabada oo dhiig ka furmay taana markaan alxamdulillah dhaqaatiirtii iyo shaqaalaha caafimaadka nursing iyo dhamaan iyo administration-kii laga wada qayb qaatay si degdeg ah hawsha uga qayb qaadanay ilaahayna nagu guuleeyay inaan u badbaado patients-kii intii badnayd bukaanada intii badnayd wax dhintay ma jiro labo iyagu waa dhaawac fudud ahayeen waan dirnay mid waa kan imkaan ka shaqeynayo dhaawac weyn gaaray sababada isla markii waxaanu sameynay gargaar degdeg ah waxaanu gelinay qaybta qalliinka waxaana gelinay waxa la yiraahdo chest tube ama tumbada ka soo qaada dhiigga iyo hawadii gashay sababada runtiina si degdeg ah ayaan hawshan ku leeyahay insha Allah waan ilaahay nagu guuleeyay bukaanka imkaan sideed bishan baan loo keenay marka laba aad u serious midna qalliinka ugu jira midna emergency-ga afar nooc kan female kala soo dhigay labana kala dhigay halka male-ka marka inta female ka joogta afar case weeyaan waa afar dumar oo waarka jiifa marka mid kasta wax uu qabaa laakiin waa isku wada sahlan gabadhan oo kale waa la yar tulay oo jiga laga tulay waa nin yar gabadhaas oo kale aduu mid kasta loo isku jireen qaar fracture isku dhacay oo jabay iyo qaar aduu burburkii gaariga si kastaba shilkani ayaa waxay sheegeen mas'uuliyiinta Al-Hayaad inuu dhacay abaara 12 iyo barkii saaka isla mar ahaantaasina dadkaasi loola cararay isbitaalka Al-Hayaad ee magaalada Boorama waxayna sheegeen in guud ahaanba dadkaasi ay saarnaayeen iskarogadan oo iyadu sidee ciidda guryaha lagu dhiso jiro khasaare dhimasho oo halkaasi ka dhacay hase ahaatee waxa jira dad dhaawacyo culus ay ka soo gaareen shilkaasi Sucaad Jaamac